إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa halkan maanta qarax gaari ku geeriyooday Allah u naxariisto sarkaal ka tirsan qaybta guud ee gobolka Banaadir Cabdishakuur Xuseen Cabdi Dhicishow oo loo yaqaanay Jaabiri sarkaalka wuxuu ku socday gaari yar oo premier ah sidaad u jeedaan gaarigiisa ayaa waxyaabaha qarxa ee loogu soo xiray waxaa la socday laba qofood oo mid askari yahay iyo qof kale sarkaalka waxaa la geeriyooday qofkii kale la socday Allah u naxariisto waxaana ka badbaaday qaraxaasi oo dhaawac fudud soo gaaray askarigii asagana la socday marka goobtan waxaa ku geeriyootay laba qofood askarigii dhaawac ahaana waa hadda caafimaadkiisa lala tacaalaya allaha bogsiyo ee dhaawaciisa inta dhimatana Allah u naxariisto runtii kooxahan argagixisada muddooyinkii u dambeeyaba baacsigooda iyo lagu daba joogay heerarkii u dambeeyay ayay marayaan sida laga dareemayaba runtii waxyaabaha muddooyinkan ay wadaanna waxay ahayd in gaari ay waxyaabo qarxa ay ku xiraan inay goobaha wadooyinka ay dhigaan waxyaabahan qarxa ee gawaarida ku soo booda laakiin ciidamadeena ammaanka oo iyaguna ay ku guuleystay inay fashalayaan waxyaabo fara badan oo runtii dhibaato lagu geysan lahaa ee shacabkan ku dhaqan ee gobolka Banaadir waan ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay sii wadaan waxaan kaloo u mahadcelinaynaa taliska booliska ee degmada Xamarweyne oo runtii markii halkaan ay wax ku dhaceen ku soo baxay halkaana markaa gacanta ku dhigay ilaa iyo meedadkii laga qaadayna hooshii ku jiray dadaalkoodiina waan kaga mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed mar walba waxaan ku wargelinaynaa ama kaga digaynaa inay fiiro gaar u lahaadaan gawaaridooda halkay dhiganayaan inay laamaha ammaanka la shaqeeyaan inay ka xadiraan taxadir dheeri ay sameeyaan falalka ay damacsan yihiin kooxaha argagixisada